السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء وحي لورا الله ويرادين وحنسي حوجينيا وننتي لا شيء وهرين نبي عليه الصلاة والسلام حتى المامة أبغض الناس إلى الله ثلاث إلهي دتك وقول نعبي هاي دتك صدح ويان وصدح الذنوب وين قال مركا قال لمدي وحال قيمات أبغض الناس إلى الله ثلاث ككواد نبي وحكوت المامي ملحد في الحرم ما الذنوب تبوين كوكلية حرم كقديسي ذنبي قويني دي شنو ذنبي إن حرم كإلهي القصي السمايانا وذنبي لبعض كاسيو حكم دي هيبو نبي قويري صدح دا إلهي ونعبيه وحكى له صدح دا إلهي ونعبيه كم دبو نبي تلمامي مبتغ في الإسلام السنة الجاهلية قف إسلامك لحديثة كربو wadadii jaahiliyada inuu wada dhaqamadii diinta ka soo horjeeday wali raba inuu islaamnimada si dhex wado waa muslim islaamnimadiisu waa haystaa laakiin haddana wixii jaahiliyadu ku dhaqmi jirto wali guntiga ku sitaa oo wuxuu rabaa dhaqankaasi inuu socdo waxa aad moodaa inagu ka Soomaali ahaan dad muslimiin abcan jaddi ahayn انت تاريخ الصوماليات لقرنايو دد صوماليات مسلم باي هاي صومالي الدين كلها يستمين المقال انت مسلم هذاني هدنا waxaa jira dhaqamo diinta aad uga fog waynu dhexwadnay oo reeraheena iyo qabaa'ilkeena iyo dadkeena u ahaa xeerar dhaqamadaasi waxay keenayeen inaynu ka mid noqono marka kuwanuu nabigu sheegay uu leeyahay mubtaghin fi al-islam sunnat al-jahiliya dad islaamnimada ku dhex raadinaya wixii jaahiliyadu ay lahayd masaa'ilkan uu sheekhu sheegay Cabdinaasir مثلا magahan iyo waxa ku saabsan iyo xeerarka inuu ka dejisanay dewa islaamnimadii aynu wax kala dhex wadno markii la iswacdiye waxa la isu sheegay waa jiraan hadda reer Soomaaliyeed oo cuqaashoodu inta shuru qabatay isu yimi marka masaladu taagantay hadda tiraahdo sama lagu fulinaya waxa laga yaabaa in dadku aqbalin ama dad badani waxaan caadayno ahaan jirtay waa la wadaya ku yiraahdaan laakiin iyadoo balaba jirin bay shiriyeen reerkoodii way isugu yeedheen culamadoodii iyo waxgaradkoodii iyo waayeelkooda way isu yeedheen war waxa diintu ma ogola maxaynu ka yeelaa la isweydiiyay maanta aan xeer ka dejisan daynu hore xeerar u soo lahayn de kuwa ragumba soo qoray waxay doontaba ha noqotee qalad iyo sax waxay doontaba ha noqotee waxaynu maanta ka yeelaa waxay go'aansadeen wixii ilaahay inoo soo dejiyaan ka yeelo way ku dhaqeen reerkina wuu wada qaatay odayna kuma qasbin cidana kuma qasbin ee waa tala reer gaadhay oo intuu reer tashaday ay gaadheen inay qaataan wixii ilaahay uu jiday la yiraahdaa agoonka yar Soomaali mesela dilku ma dhamaado sababuhu dhamaan way xeerka ma kamida inanka yar ee aabihii la dilay ama walaalkii la dilay ee odayaalta fadhiistay yiraahdeen ninkii waa cafinay isagoo waxba la weydiinin ama la jajuubay ee markii la qaatayna la yiraahdo adiga laba halaad ba kugu soo hagaagay aabihii ma laba halaad buu kaga sabrayaday Soomaha uu sida intuu ama qaqaan gaarayo ama mid cidla marayo uu ka helayo uu sugaya waxana aanadu u dhamaan weyday iyo dilkan u dhamaan waayay wax weeyaan de qofka weynu jujuubna qofna mayna sabirsiinin laba mid un bay ahayd inaynu qofka qisaas u ogolaano oo yiraahdo baahinkaas waa dilay ha loo dilo oo qisaas aqbalo iyo wuxuu ku sabray inaynu siino nidhaano war boqolka geela ka hayso waad iska baraariya cafi dadka oo marka uu arko nin aabihii calala qal hawaaye wax haysta laakiin gala reerku qaybsaday isaga xoolo uma aha gala reerku qaybsaday isaga xoolo uma aha wuxuu ku sabraa marka meesha ma yaalin
waxaan aanadu inooga dhammaan weydaan waxaan wax ka saaraya xeerkeennan xeerkan aynu ku dhaqmayna inuu yahay waxaan aanadu u dhammaan weyday qoysna u sabri waayey 40 sano ka hor mid la dilay uu leeyahay reer hebel baa dilay reerkeegii marka laba mushkilaad taagano kii reerka ninka ka dilayna wuu dulmiyey tolkiisii magta ka qaatayna waa dulmiyeen labada qoloba waa ku dulmiyeen kii abaha dilayna ku dulmi wixii laga qaatay kuwii ku diidayna dayana ku dulmiya agoonkana laba jeer buu markaa dulmayay marna reerna abihii buu dilay reer xoolihiisii buu qaatay marka waa laba jeer oo dulmiya idan waa laga yaabaa dadkiina halka fadhiya iyadoo sidaa loo qaybsano inaydan ugu timaadeen oo inaydan xeerarkan idinku dejin laakiin dee rag baa tihiin xeerka waa la bedeli karaa reerkii xeerka lahaana waa loo talin karaa waana la shirin karaa diinna waa qaadan karaa maan arag anigu dad soomaaliyeed oo meel isugu yimi oo wanaag ka shiray oo isku diiday maan arag dadku hadduu wanaag ku shirayo oo markuu shiro isugu yimaado laakiin iyadoo dhibtu taagantahay haddaad shiriso waa mushkilad iyadoo nabaddu taagantahay roonta intaad shiriso inaad tidhaahdo war waxaa berri maxaynu ka yeellaa xeerkeennii hore kaasoo ahaa diintiina saasay sheegtay maxaynu ka yeellaa inay isweydiisaan dadku wuu qaadanaya kaasi waa qodobka hore uu tilmaamay sheekhu qodobka labaad ee uu sheekhu tilmaamay ee nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa jira erayo anas ibnu maalik uu leeyahay khudbad kasta uu nabigu jeediyo wuu jeedin jiray khudbad kasta oo nabi maxamed noo jeediyo buu yidhi weedhaha kama tegi jirin laa amaanata laa iimaana liman laa amaanata lah walaa diina liman laa cahda lah nabigu wuu yidhi mar kastoo khudbadayne wuxuu odhan jiray iimaan ma laha ciddii ammaano lahayni diin ma laha ciddii aan ballan lahayni ayuu nabigu nagu odhan jiray buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ammaanadu way kala weynti ammaanada maamulka ugu weyn cibaadadeeduna waa ammaano ilaahayna saaray oo laynaga rabo inaynu gudanno xoolaha bini aadamku waa ammaano laakiin maamulku nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة هذا أمانة لمطه قيامه هناك بنبوي مرة سيدة إليه رسولك سيو ضيع مساء إذا وسد الأمر إلى غير أهله بنبوة الماء أمانة واحد ضيعته مدان مضنين مرة هذا الله سيئ ضدك مدح لو قدوه ما أنت الصومالي يسي شوخ شيء يدكم بمدحوها haddaad adigu tuug soo saarto iyo mid wax boobaya aakhiraadna waa lagu qabsanayaa waayo adaa boobka ka markhaati ahaa adaa rabay in wax la boobo minaadaadba xoolahaagu u dhiibateen haddaad tidhi xoolaha ummadda ha loo dhiibo adigu maad u dhiibateen waxaaga ilmaadeer waatiin tol waatiin isku reer waatiin laakiin waxaaga umaad dhiibateen laakiin waxaad ogashay waxa ummadoo dhan in loo dhiibo dee waa laba tuugu maateen waa tuug iyo tuug kalkaal waa laba shaqada waa wada wadeen weeyaan runta markaynu isu sheegno haddaynu inagu daacad ka nahay dadka samahiisana doonayno waa samayn karaynaa waayo dadkaynu xilka keennaa dee rag ordayo hunguri wada waa kuu imanayaan waa hubaaltaasi mid lacag sita waa kuu imanaya mid ordaya waa kuu imanaya laakiin aday ahayd intaad reerka eegta inaad tidhaahdo warkaasaa ugu daacadsan oo ilaahay dartii dadka u cadaalad samaynaya cadaaladu wayna wada gaari lahayd marka caqal walba hadduu kaa keeni lahaa soomaaliya way kici lahayd waa kufte waa kici lahayd cadaalad baana ina deeqda kani wuxuu soo boobaadna wax ku tari maayaan laakiin innaga waxaa ammaan noqotay tuuganimada سادرادين إن لنا كهبل والله لما سنضاد بده ماشي كشقة يورر كينا قريبه ودرسه يعني يرر كينا جامعة ودرة وتوجو واحد كوا مانسة حتى لما بده توجو تقفك عادي قال الحضارة كفي عن ويقفك عادي قال الحضارة حلقة بلد ويحسوا على الشو إن تراوريه ويعفي بريبان واحد لا ضاي طابطي 8 مليون وقفوا هذا هداد حدا آخرية كاسارية
10 milyan oo qof oo agoon iyo mid jaban iyo mid indhala iyo mid baaba'san bale ilaa 10 milyan bay intay ka dhaxaysay 10 milyan wuxuu qofkii qaatay aakhira si uu badbaadaya yaa cafinaya adiga waxaan ku yeelaa ama ka qaato waa ku soo badheeri karaa wariyo si ka cafi waa ku celin karaa si uun baynu wada xaajoon karnaa laakiin 10 milyan oo qof wuxuu haday kugu tageen ilaahina wuxuu leeyahay waman yaghlul yati bima ghalla yawm alqiyaamah cidii waxada qululku waa xoolaa la wada leeyahay cidda wax ka xada ama faygiyo jihaadka hadaan ama maalka baytul muslimiinka hadaba wuxuu doonaado waman yaghlul ba ilaahay yiri cidii waxada yati bima ghalla yawm alqiyaamah waxay yiraahdaan tuugada dadweynuhu tuugada kale way ka gadisantay wuxuu imanaya wixii uu xaday isagoo tuurta ku sida qiyaamaha kontonka sane dadku uu taagan yahay banka qiyaamada la isxisaabinayo hadduu awr xaday dushu awrku ka saaray isagoo qaylinaya waliba waxay yiraahdaan xadiidku wuxuu sheegayaa awrku isagoo cod leh cabaadaya waayo dadka la rabaa in la tusiyo yowma alcardi ceebtiisu inay muuqato kii dhul xaday isagoo dusha ka saaran loo imanaya 7 ardiin iyadoo dusha ka saaran waxa calaamad u ah bay yiraahdeen qof kastoo tuuga noocaas iyo galay isagoo tuurta ku sitay inuu yimaado waxaan leeyahay markaa war Soomaali ma dhibadna runta hadii la sheego dunida loo eego iyo waxa ka jira ma dhibadna laakiin laba ceebood baynu leenahay in farsamayn kari weynay laba ceebood baynu farsamayn kari weynay bay leenahay ceebta qabiilka ku saabsan haddii lagu yiraahdo wax soo door mid wax boobi kara inaad meesha geynayso haddii la yiraahdo cadaalad samee tolka inaad gar iyo gardarraba u hiiliso waa dhankooda laga soo marin waxaana ahayd inaynu cadaalad xaqan ka bilowno tolkaana inaad u cadaalad samayso dadka kale muslimkaana inaad u cadaalad samayso haddaynu qabyaalad xal u helno ama magteed ha noqoto ama xeerkeed ha noqoto ama say wax u qaybsanaysa ha noqoto ama cadaalad raadinteeda ha noqoto haddaynu xal u helno Soomaali xal waa u helina ka labaadna waa mid odayadii hore intaasi xal u raadinayna ku soo biiray oo waa balwadu dadkii hore way inaga waxyar way inaga adduun yaraayeen Soomaalida maanta joogta ka adduun badan Soomaalida hore odayaal waaweyn oo Soomaaliyeed baan xabsi bari ku wada jirnaa sheekeynaya marka waxa ka sheekeynaya magaalooyinku say ahaayeen iyagoo ciyaal yaryar in garow baa la karin jiray bay yiraahdeenoo fuudka garowga ka soo hadha ayaan weydiisan jirnay kuwa hudheelko fuudkaasay dooxa nagaga aasi jireen bay yiraahdeen fuudkii xataa noo diidi jireen fuud garow ayay naf bidayeen Soomaalidu maanta ay xoolo badantay maanta maalay ka xoolo badantay ma jirto in kastoo problem haysto laakiin Soomaaliga hore cunada ceeb buu yaqaan aqoonadna gaajo ka doorbidi jiray isagoo baahanna wuu seexan jiray ninka waayeelka ama ninka wax garadka ama qofka magaca leh isagoo waxba afka saarin cunaduna kuma badnayn oday Soomaaliyeed odayadii Soomaalida ka tiri jiray waxa la sheegay oday baa ku yiraahday suuq gamaad iska day islaamkaas ugu yiri hebel nin la yiraahdo oo reer hebel u ahaa odaygooda bisha Ramadaan buu ugu yiri bisha Ramadaan oo dhan laba wasaladood oo hilib iyo 18 koob oo subag u cabi jiray buu yiri 15 hore neef u qali jiray wasalad buu ka cuni jiray inta ku xigta koob subag u cabi jiray ninkaas koob subag u cunay intuu ka dhigtay iska seexanay ama dan ka lahay oo soomay waxaan uga dan leeyahay iyadoo baahidu taalo ay dadku asturnaayeen hadda bini'aadamkii baa wada baahi laga dhigay balwada inoogu darsamay balwadaas waxay keensatay qofku wuxuu haystaba inaanu ku filayn wax kastoo agtaada yaala inaanu ku filayn waxa laga yaabaa maanta lacagta moobilka aynu ku bixinaa inay reer masruufi jirtay 30 sano ka hor 40 sano ka hor lacagta maanta aynu moobilka ku isticmaalno kharashka moobilka aynu ku bixinaa inuu reer masruufi jiray dadku markuu wada baahi noqday isla markaana dhaqaale ku filan baahidan oo dhameeyanu jirin
waxaa batay laaluushkii iyo musuqmaasuqii iyo wax isweydaarintii iyo ammaanad darradii iyo waxa kan waxaa inagu sii daray maanta khamri qaad xashiishad soomaaliya wax walba hadda waa cabtaa waagii hore soomaaliin yarbaa waxaan cuni jirtay anigu waxaa soo gaadhay magaalooyinka waaweyn soomaaliyeed oo 3 laan loobar yimaadaan 3 laan loobar buuqaadka gobolka burco oo dhan soo gala ayuu ahaan jiray maantana wadada markaan maro dhowr iyo 10 gaadhi oo tareella ah bay dhaafo qaadsida waa 2-3 saacadood aan meesha sii socdo intii waaga intaanu bariyin martay iyo inta galka dambe maraysiya waxa marka laga yimaado waxaana Soomaaliya cunaysaa meelibana meesha galbeed ka sii xigtay kaga sii badantay way soo dhaafto hadda magaalooyinka qaadcun yar baadiyaha xun kullu gobolada aan ka imi baadiyaha ka liita magaalada dad badan oo waayeel oo waaweyn oo wax garad oo aan qaad cunayn baad arkaysaa magaalada waxa laga yaabaa dhalinyaradii jaamacaadka oo dhan oo intooda badan aan qaad cunayn baad arkaysaa laakiin baadiyaha 80 jirku uu qayala oo sigaarku cabaa dhalinyartoodina khamriga cabtaa geelasha khamri lagu hor cabaa geelasha Soomaaliyeed baa khamri lagu hor cabaa dhul badan oo Soomaaliyeed leedahay qayb waxaan uga dalayaa markaa xumihii wuu soo kordhaya iyadoo baahidii sii badanaysa haddana xumihiina soo kordhaya balwadu hadday meesha timaado controlku wuu lumaya markaa dad wax booba iyo dad wax hada iyo dad wax dhacay way qofkii balwad ka dambaysa balwadahana dadkii idinka u madax ah sidii loola dagaalami lahaa loo joojin lahaa ama loo yareyn lahaa horta de waxa qodhay lagu joojin karaa waa diin dadka haday diini gashana wuu joojin nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam askar ma qoranin xabsiya ma samaysanin waxba ma samaysanin carab oo khamri ka dharagtana wuu yimi 15 sanadood horena way cabayeen ee islaam laaha 15 sanadood oo islaam leeyay oo la tukanayo oo la soobayo hadana cibaadaadka labada hadana khamriga la cabayay waan la joojinin laakiin mar qura la yiri ka fogaado iska daaya dabeetana eraygaas ku filaaday askarna looguma yeedhin cidna looguma yeedhin dadka hadaynu diin geelino oo wax barro oo iimaankooda xoojino balwadan waynu celin karaynaa waa celin karaynaa hadaynu dawladda ha ku taageero waa yarayn karaynaa qaanuunku uu yarayn karaa oo ma joojin karo waayo waxay yiraahdaan shay market leh inta shay suuq haysta inta suuqu jiro cid keenta la waayay maayo daan maanta labada ugu waaweyn keenay ama saddexda ugu waaweyn magaaladiina jooga hadda isugu nimaadno waayeliyo aynu wacdino oo yiraahdaan waa ka baxnay saddex kale uma keenaysaa way suuqii baa jira meesha waa inuu suuqu go'aa oo kan haddii iska daayo ku dambe xataa hadduu keeno waa inaan suuq jiraynin siduu ku joogsan karaa waa sidaa waa inaan suuqu jiraynin maaha qof iyo laba iyo saddex dan oo qura waa inaan suuq dadkii ahaa customerska zabuunka dadkan gadanaya waa inay joojiyaan markaasuu suuqu engegaya dadkanina waxay ku joojin karaan dee haddii wacdi iyo diin iyo tala iyo caqli iyo wax ku kordhino haddii uu u muuqdo inuu ceeb yahay xataa waxyaabaan ka yaabay waxa ka mid ah galbeedka nimanka reer galbeed dadka droogooyinka isticmaala waa dabaqada hoose bulshada inteeda mudane hadday droogada iyo waxaan isticmaashay way ceebowdaa marka waa inuu shaqadoo dhan ka tagaa waa ceeboobaa innaga imika wuxuu u soo socdaa bulshada inta mudane inay cunto oo reerka haddii suldaanku qayalo ama madaxweynuhu qayalo ama sheekhu qayalo intii kale maxaad ka sugaysaa marka يعني دتك أما تاجر كأنتي وحيس أنتي دتك إيجانية هذا يدو قيشوا ورنت يريري يسكت هي بعقلك جالي ميس وإن دتك أنت مضاني أي فراك قاطع مركزا أنت يريرنا لسي وعدي كرا وحي هاسوس يداني كرا ددوا وين ملات المامون باقوف لنا هذا البضاني
waxba kordhin maayo dhowr culamaana waa ku hadalay waxaan ku soo koobayaa xil ballaadhan baa idin saaran ilaahay idin fudaydiyo dhibaha dadkeenna haystaana ma yaree ilaahay naga kor qaado laakiin dadkii wuxuun samayn kari lahaa ma dhibtaa yarayn kari lahaa waa innaga oo kaashanna ilaahay sharcigiisa iyo dadkaynu u talino oo aynu talada wax ka siino la wadaagno oo wanaagga ugu yeedhno way aqbali doonaan haddaynu inagu noqono kuwa wanaagga horseedaya sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilah rabbi